warwadigii nacay aniga habariga doortaye kaamaan dooranine waxba ma ogidi danteenninu ku gelinaa iska aamusdan baynu wadanaay aniga hadday kaxayso oo ay maxay ahayd toolay Mareykan geyso waad ogtay kaama wuli karo sidaa markay aan u tago een ku sharci qaato ayaan ka baxsanayaa guurkeedu midaan raba maaha dan baan ku galay iyo qaar kaloo badan wax aynaan garanay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu nabaday daawadayaal idil ahaantiinba meel kastood iga daawanaysaan waa walaashin ubax shide halka aad iga daawanaysaana waa ubax shide official hore haddii aad ila joogtay fadla waa kaaga mahad celinayaa la joogidaada quruxda badan haddii aad igu cusubtayna soo dhawoow ka mid noqo asxaabteeda cusub ee ila jaan qaadi doonta insha allah kuna xidhnaan doonta barnaamijyadeeda ama waxyaabo ku xiiso gelin doona oo aan soo gelin doono fura gambaleelka barnaamijka aan ka hadlayana wixii raygaaga commentiga hoose igu reeb insha allah maxaa layidhi dumar waa sheeko ragna waa shaah caawa labadii baana isku darsaday shaahaygana waa kan sheekana caawana halkan usoo fadhiistay in aan idinla wadaago qiso dhacday ama qiso dalwanaajo qurbuun maxaduulisu keentay adduunka korkiisa dadka ku nool maxal waa maadeysi dunidu dadkuna waa matalaya raggii joogay Afrika oo Yurub soo haajiraya iyo raggii Yurub joogay oo u haajiraya Mareykanka qisatul cajiib waxaan idinla wadaagi doonaa arrin cajiiba oo ku dhacday walaashin Soomaaliyeed waana qiso dhab u jirta inan Soomaaliyeed ayaa waxay isbarteen wiil waxa la iska bartay aaladda internetka social media ayaa la iska bartay inanta iyo wiilku ismay leekayn ahaan waxa wuxuugaa weyneyd inanta wiilkuna dhalinyar buu ahaa walow baryahan dambe dee dumarkii yara waaweynaa dhalinyartii ay farabaas ku hayaan waxa loo gelayo garan maaye intaasina waa iga kaftan jacayl baa la wadaagay jacaylkii ha la wadaagay jacaylkaasi wuxuu ahaa mid dhinac ka raran wuxuu u rarnaa dhinac isagu jacayl ma wadin laakiin danaysi buu wadi iyaduse waxay ahayd qof jeclaatay walaalkiin kana heshay inankanay jeclaatay iyadu gabadh kale ayuu isagu uu sii jecel yahay laakiin jacaylkan uu gabadhan ka weyn ee Mareykan degan la jiraya waa midaan waxba kama jiraan ahayn jaa keliya wuxuu u rabaa in uu ku dhoofo uu meeshan kagana baxo waana nin haysta negative waxba yaan hadda idinku daarina jacaylkii wuxuu socdo waxa la isla meeraysto la isla dhuumaalaystaba wuxuu waan ku doonaya inaan ku mehersadaan rabaa kaama firsan karo qofku rabo ku daneynaya baan ahay adduunna ma haystee maxaa xala ileen waa dumaro waa qalbi xabxabe beebi aan baan ahayn laa anaa hayo kuu soo diraya walaalkiina waan iskiin qaabilsiinayaa wada xidhiidha lacagtii bay soo shubtay lambarkii walaalkeed sidii ayuu gabadhii uu ku doonay kaama maarme inaad ii timaadaan rabaa oo waddanka aan joogo aad timaadid qof aad kuu jecel baanay qofku daneynaya baanay waxaan rabaa inaad dacwadii xaraysid meeshan inaad iga wadid inaynu soo heshanaan rabaa meelna aynu ku wada noolaano reerkii waa reer cusuba gabadhii halkan ayay timiday yurub marka ay timiday meesha jacayl ma jiree la wada degay 1 week la wada deganaa maasha allah reer qoysa lahaa maxay ogaan doontaa maxaase soo bixi doona yurub dadka qaar ayaa waxay iskaga jiraan siday dadku u badan yihiin kaaman guri ayaa la karaystay bil baa guri la karaystay kharashkii bay bixisay hawshoo dhan iyadaa waday iyadaa kala waday talow sanadka maanta ma dumarkiibaa wax guursanaya wax fangareynaya inu nidhaa mise waa raggee allow sahal amuuraha waxa dhacday gurigii baa la kareeyey reerkii sidii bay hal wiil ku deganaayeen gabadhii jacayla ninaba caadi ahayn bay u qaaday way kaxaysay boroseskii ay ku kaxayn lahayd
ayaa isla markiiba wuxuu ku tashkiiliyu dabada ka galay sida ay u wadi lahayd sida ugu dhaqsiyaha badan ee ay safaaradda wax ugaga xarayn lahayd. waxay socotaba isagii waa nin danle ugu kabageliyey ayadoo wuxuu xaraysay hawshii dhan tahay in ay kaxayso ku tala gashay. sirma qabee raxmaanku adiga usaane waxba maan samayn. sirma qabaa low sahana maalin maalmaha ka mida ayaa waxaa dhacday taleefankiisii ayaa ka jabay. isaga taleefankiisii ayaa jabay. gabadhii kale ee la isjeclaa ee ninkan meesha u joogtay uu dee loofkaba ku ahaa ayaa meel laga wada xidhiidho la waayay. muddo 2 cishaa la islaa. iyada laftarkeedu waxaan leeyahay talowtan uu shukaansan jiray maxaa ka khaldanaa miyaanay caadi ahayn. taleefankeedii buu ku yidhi idhib xabiibi taleefankaaga qof baan la hadlayaa ee balan khadka yaro galeen. taleefankiiba u dhiibtay. waaba maanseejaa asalaamu calaykum waryahay baryaan xaggeed qabatee waaba dinacdee. wallaahi xabiibi kuma nicina adduunkan kuugu jeclaya maxay ahayd tole waar waadigii nacay aniga habariga doortaye kaamaan dooranine waxba ma ogidi danteenninu ku gelinaa iska aamusdan baynu wadanaay. aniga hadday kaxayso oo ay maxay ahayd tole Mareykani geyso waad ogtay kaama weli karo. sidaa markay aan u tago een ku sharci qaato ayaan ka baxsanayaa. guurkeedu midaan rabo maaha dan baan ku galay iyo qaar kaloo badan wax aynaan garanayn buu sidaa u hobabiyey maasinjarka. iyaduna halkanay huuris iyo suqaar iyo dhanaan iyo isku fujuq ay shiilaysay leedahay dee gabadh aroosada baabatayba. ilaahu ragga Soomaaliyeed. gabadhii waxa ay samaysay haddana nin saaxiibkii baa soo wacay isaga saaxiibkii shuur waryahay bal qofkii ka waran. shuur way joogtaa niyo haye maxaa kuu qorshaysan warniyo waxbay xarxaraysay oo dee wakaa maxaa dee qorshahayga waad ogtaanu meeshanaan kaga baxaya ayaa negatifekaan ka haysto meeshaasaan iska aadayay. warniyo waadaabay dee ku kaxaysatay ku jeceshahay maadeen iskala noolow hadduu dee ilaahay sukaynsa qaro. warniyo qofkan ma jeceli meesha dan baan ku galay ujeedaan wataa waanu qof weyn qof wax dhalaysa maaha. horaa loo soo guursaday hadday wax dhalayso horey rag usoo martay mid wax dhalaysa maaha. mustaqbalkayga kuma absaamanay saaxiib aniga dee waad taqaanaa inaan xariif magaalahay camal wax u eegtay. gabadhii halkan cashadii soo dhigtay waa la casheeyey. subaxii baa waagii baryo gurigu kaga tegay. sirma qabaa low sahanee taleefankii ayaa maasinjarkii ayaa furan. isaga maasinjarkiisii ayaa taleefankeeda ka furan. waxa dhacday naagtii baaba qoraal soo qoraysa gabadhii kale haa xilliganaad hurdaa oo maxaajiintii baa kula jiiftaa. waxay istiri qofkan kugu soo waashaa dhulum maansiijkan laba dhacaya balaadwaad talo waa ayu keedii bay moodaysa. waaba arrimaha adduunka danka ma lihi waan ku dhoofayaa adaan kuu tegayaa markay wadaadna adaan ku wadayaa waynu ku danaysanaynaa jacaylkeennii oo miyaynu iloobi karnaa oo ma taariikhdii oo ma taynu isla soo marnay oo ma habariga weynoo shalay bartaankaa raaci karaa iyo wax aynaan shaqo ku lahayn iyo qaar kaloo badan buu ninkii dabaasha. gabadhii ilaahay yaa buukeen naxdin yaa maka way sadkaysay waxay sircadii wiyuu kugu wiirsan. hadda haduulin wiig iyo barh baad joogtaa bil baad soo goosata yaan la odhan ninkiina miyay soo kala boodeen dhulka isku nabqushiya waxba ha weydiinin hadhowna iska laabo. ilaan waa qof jacayl jilayo qof wax aad u jecel mahe waad ka dareemi kartaa. maalinba mawjad iyo meel buula kacaa. ujeedku haddii la jiifiyo haddii la joogana
wuxuu ka hadlayaaba waa warqadii iyo safaaradii iyo maxay ku tiriyomaadii xariis iyo meel baynu wada joogi layna topic jacayl iyo arrimo kaleba kama hadla ninkani waxbayaan hadal idinku daalinine maalintii dambe ku tiri dee safaaradadun badaysaa safaaradii wax walba waan ku dhameeyey waanan ku hagaajiyey dee safaaraddu iyadaynu soo wacaysana waana laabanayaa barnaamijkan iyo waxaan siyar kuma dhammaadaane dee walaalow ha degdegina samir meelba ima wadidee qofii wadama tiidee imaba kaxaynaysidee gabadhii ayuu kaba kuleel haddana u geliyay dumar baynu noo mar kale naga badbadiyana isma hayn karno waxay tiri walaalow waxaad wadaanuu kuma fahmin ujeedkaagana ma garanayee umaad iska soo wada baxdid maanaad ugu leeday umaad soo wada baxdid hayaay qarrac iriya dhul buu la baxay amar waxay tiri war filinkaaga inaad yarwaan hayaa adkaysana kara weyde arrinkaasaa jiro saasaa jira dee haddaad igu danaysanaysa inaad ir maxaad iisoo lugaysa iminkaba dee intaa maynu ku kala joogno naama anigaad igu leedoo qiiqii isku qariyo taleefonkiibaabuu dhulka ka jara taleefonkii ayaa bartii ku burburay si aan xogtiisa iyo arrimihiisa toona aanay u helin gabadhii intaasaabad igata ma jacayl baynu odhan karnaa ma lugooyaynu nidhaa ma hagardaamaynu nidhaa ma ciyaaro suuqnimaynu nidhaa bal idinku dhaqanka noocaasa wax laga soo warrama gabadhii iyadoo qaracana oo muraara dilaaca ayay halkii ka baxday iska tagtay ma gabadhaa markaa degdegtay ma iyadaan u hubsan ma iyadaa ku sal fududaatay mise waa mushkiladaha ay hadda la soo baxeen raggeena Soomaaliyeed oo tu dal joogta iyo tu diba joogtaba waa hagardaamiyo dhibaato ay ku hayaan bal ninka waxaad ra'yigaaga ka yeeli lahayd commentiga bifadlikum iigu reeb wixii ra'yigaagaana ka dhiibo haddii aad ninka ahaan lahayd ama aad gabadha ahaan lahayd bal waxaad yeeli lahayd commentiga hoose iigu reeb haddiise aad gabadhii ahaan lahayd ninka maxaad ku samayn lahayd maxaadse ka yeeli lahayd go-aankeedse ka qaadan lahayd asxaabteedaan jeclahay aad iyo aad baan idiin salaamayaa waxaan kaa codsanayaa in aadan ka ilaabin sheerta iyo laygta gambaleelkana aad furatid meeshii guduudneyd inaad caddaysaan aan rabaanoo aad baan idiin salaamayaa anigana waa idin rigelin adna waxba ku yeeli mayse farta uuna kabku sii aad baan idiin salaamayaa halkaas aanaynu ka wada socon doonaa insha allah bismillaahi kariim asxaabteedaan jeclahay bye bye